Bismillahirrahmanirrahiim. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kulanti wacan oo wanaagsan. Kusoo dhawaada kanaalka Mami Academy. Kanaalka maanta waxaan iisoo gudbi doonaa barnaamij ku aadan minxada Turkiga ama scholarship-ka ah, sida ugu fudud ee qofka uu ku buuxsan karo asigoo aan u baahnayn inuu meelo kala tagay. Bes laba shuruud ku xiran. Tan koowaad oo ah inaad heli kartid mobile smartphone ah ama computer inaad heli kartid, welibana internet uu ku yahay mid fudud oo aad heli kartid internet. Haddaa labadaas ku heli kartid, si fudud ayaad ku buuxsan kartaa minxada Turkiga adigoo maraya wadooyinka hadda aniga aan marayo ayaad mari doontaa insha Allah. Fadlan ila soco. Hadduu kugu cusub yahay kanaalka, subscribe saar, share na dhig asxaabtaada la sii wadaag si ay ugu faa'iideystaan minxadan ay u xareystaan. Ugu horeyn waxaa soo kacsan doontaa Google-ha ayaad tagi doontaa. Google-ha markaad tagtid, barta searching-ka ah ee wax lagu qoro waxaad ku qori doontaa ciwaanka meeshan iga muuqda oo ah www.turkiyebursary.gov.tr 2020 ayaa halkaas ku qori doonta ah www.turkiyebursary.gov laga soo gaabiyey .tr kadibna waxaad raaci doontaa 2020 si toos ayuu kugu xiri doonaa website-ka. Intaan oo qeyb ayuu kuu keeni doonaa, kadibna waxaa kasii dooran doontaa barta linkigan ay kugu qoran tahay oo ah Turkey Scholarship 2020 application weeye. Waa ku dhufan doontaa hadduu Ilaah yiraahdo, ku dhufanaysaa wuu kuu shaqeyn doonaa si ayaa kuu soo bixi doona application-ka ayuu kuu keeni doonaa. Marka hore meesha hadda waxa ay kasoo baxayaan oo ay ku qoran tahay international students ayaa apply kugu soo qormi doontaa. Laakiin haddaad si fudud ayaad ku heli kartaa. Haddaa meelahan apply aad ka weysid, hoos ayaad u wadi doontaa, kor ayaa kan u wadi doontaa. Waxaa raadinaysaa bartaan oo ah announcements ay ku qoran tahay. Waxaa lagu soo bandhigaa waxyaalaha cusub ee kasoo baxay Turkiga, khaasatan barnaamijka ah Turkiye scholarship-ka wixii kasoo kordha halkan ayaa lagu soo bandhigaa oo ah announcement-iga ama waxyaalaha la ogeysiiyo dadweynaha. Marka inta waxaa ku qoran Turkiye scholarships 2020 application-ka codsiga open wuu furan yahay. Somahan waa ku dhufanaysaa, marka waa ku dhufatid wuu kuu shaqeynayaa sidoo kugu xiraa. Marka waa kana wuu ku keenay Turkey scholarship 2020 application open wuu furan yahay. Marka waa u jeedaa meeshan waxaa kugu qoran apply now oo macnaheedu tahay hadda codso. Application-ka marka waa inaad ogaataa wuxuu furmayaa uu ku leeyahay 10 January 2020 iyo 20 February 2020 ku egyahay. Macnaha bisha koowaad ayuu furmayaa 10-keeda already hadda wuu furmay, 20-keedana wuu ku egyahay. Marka waa inaan ka wada faa'iideysanaa. Programmes-ka furan waxaa ka mid ah masterka ayaa ka mid ah, PhD-da ayaa ka mid ah iyo batch-ka. Inta wuu xareysan karaa qofka intuu doonayo un bay ku xiran tahay. Aniga marka hadda waxaan rabaa inaan xareyno batch ayaan isku dayeynaa. Batch ayaan xareyn doonaa. Meesha marka waxaa ku dhufan doontaa apply now apply now ayaa ku dhufanaysaa. Marka haddaa ciwaan hore u haysatay waa soo kacsan doontaa. Haddaadan u haysaninna waxaa sameyn doontaa bartaas ujeedaa waxaa ku dhufan doontaa ay ku qoran tahay register. Meeshaas hadda aan kugu aadiyey oo ninka fadhiya ku qoran tahay blasta oo register ay ku qoran tahay, macnaha isdiiwaangeli aad ku dhufan doontaa. Register ayaa leedahay, marka waa isdiiwaangelinaysaa. Isdiiwaangeli doontaa. Meeshaas name-ka waxaa ku qoraysaa magacaada. Hadda magaca aniga waxaan ku qoraynaa iska tijaabo ah oo ah Ahmed. Middle name magaca dhace macnaha magaca aabaha laga wadaa Xuseen. Magaca awoowahana wuxuu noqonayaa Afrax ayuu noqonayaa.
Okay, inta waxaa ku qoran gender. Genderna waxaa laga wadaa macnaha rag iyo dumarkee tahay. Meeshan yarta ayaa soo furo doontaa marka gender bartaas oo ah please select ama fadlan dooro ayaa ku dhufa doontaa. Waxaa kuu soo baxaya marka female iyo male midka aad tahay. Waxaa leedahay marka male ayaa nahay, hadaa female tahayna female ayaa dhihi doontaa. Goortee dhalatay? Xilligaa dhalataa la iska rabaa marka. Xilligaa dhalatay ayaa la iska rabaa. Waa ku dhufa doontaa. Waxaa leedahay waxaa dhashay 1997 oo kale ayaa leedahay. Okay, taariikhda waxaa dhashaa leedahay 1997 ama 98 ayaa leedahay, macnaha 96 wixii ka horeeyay macnaha wixii ka dambeeya la rabaa. Okay, bisha koowaad ayaa dhashay. Taariikhda maalinkaas meeqa ahayd? Waxay ahayd 15 ahayd. Kadib waxaa imaanaya nationality-ga ama citizenship ayaan tagi doonaa oo ah meesha qofka nationality wadanka uu dhashay macnaha wadankaada marka meesha nationality ay ku qoran tahay ayaa markaa ku dhufa doontaa. Markaa ku dhufatid waxaa kusoo bixi doona qaanadan oo wadamo badan ay ku jiraan. Marka adoo isdhibin waxaa ku taabataa SO ayaa taaban doontaa EM ayadaaba ku imaan doonta Soomaaliya. Waa kaasaa markaa ku dhufanaysaa. Inta waxaa laga rabaa inaad gelisid email address ayaa gelinaysaa, marka kale ku celinaysaa iyo passwordkaada. Kadibna secret question oo adiga ku khaas ah weydii doontaa. Emailkaan gelin doonaa oo ah tusaale ahaan waxaan gelin doonaa email aan soo sameyno ah waxaan gelin doonaa gmail.com. mar kale ku celi doontaa. Inta waxaa gelin doontaa passwordka gelin doontaa. Password waxaa ka dhigataa waxaa ka dhigi kartaa magac hal xaraf oo weyn oo capital waa isticmaali doontaa. Waan ku celinayaa. Xaraf ugu hore waa inuu capital ahaadaa. Inta ku xigtana waa inay ahaadaan small. Mohammed Somali number marka eraasi waa 12. Kadib waxaa gelinaa secret question su'aal oo macnaha secret ah oo qarsoodi weydiin oo ah iska fududahay. What's your name? magacaada kale way geli kartaa ama waxaa geli kartaa su'aal oo adiga jawaabteeda aad haysid oo bixi kartaa. Su'aashadaas weydiinayo isla adiga markaa halkaa ku jawaabi doono. Hadda waxaan isweydiinaa aniga what is biology isweydiinaa. Su'aal aan aqaano waaye macnaha isweydiinaa Soomaan. Inta marka waxaa leeyahay secret question answer ayaa su'aasha isweydiiyay ayaa halkan dana ugu jawaabaya. Waxaan leeyahay biology is the study of living things aan leeyahay. Bas waan ka jawaabay. Inta marka verification code-ka numberskan meesha yaala oo 5ka iyo 359 RA ayaan gelin doonaa oo ah 5359 R-ta capital waaye ayadana capital waaye. Kadibna waxaan daawan doonaa I approve it aan daawan doonaa. Kadibna waxaan leedahay save ayaa leedahay. Passwordka nagu haystaa iyo emailka waan saxnay. Define password for accessing the application system. Your password should contain at least 8 macnaha waxaa laga baahanyaa 8 character oo kala duwan inuu ka kooban yahay. Intan waa qalad Gmail ka tagay. Good aad ugu yeelay. Password marka waxaa la rabaa inuu ka koobnaado 8 shay ama 8 xaraf oo kala duwan. Tusaale ahaan waxaa ka dhiganayaa magacayga Mohammed
Mohamed aan moogtahay waxaan gelinayaa xaraf ugu hore capital waaye z ayaan ku darayaa, z aan ku darayaa. Okay waa fiirnina bal qaybtan waxaan leenahay Mohamed xagga waa soo kaana subya Mohamed Lion 12 z. Intan waxaa leeyahay sidoo kale Mohamed Lion 12 z. Okay good. Hadda marka waxaa leeyahay save aan leeyahay. Inta wax ka qaldan inuu leeyahay passwordka Mohamed Lion Z12. Okay password ku celi mar kale Mohamed Lion Z12. Okay hadda waa sax marka isqaatay. Okay save aan leenahay marka. Save. The verification code is incorrect. Verification code kadana incorrect uu leeyahay. Waxaa qaldan. Okay afwan. اسمي كان هاي عفوا 6 waaye 6 3 5 9 ra save aan leenahay marka uu yeelay bas buu qaatay saan ayuu kugu samaysmay waa asriis garaysay dib waxaa leedahay approve edit dhihi karta marka save aan leedahay bas name magac waxaa waaye Axmed middle name ku waa Xuseen surname ku waa Afrax nationality waa Soomaaliya. Please make sure that your name and surname are corrected to be used in formal proceeding. Magaca waxaan sax miyaa isku hubi. Nationality cannot be changed in the next stage. Haddii stage kale la tago nationality ma la bedeli karo. Marka waxaa leeyahay marka save. Jaadu is registered waan sameynay. Inta marka wuxuu leeyahay Dear Ahmed Hussein Afrax and so the above registration has been successfully completed. Si fiican ayaa isku diiwaan gelisay waana la aqbalay registration-kaada kan never iska dheh. Okay thank you waa ku mahadsantahay for using doorashada Turkey scholarship soo doorata ku mahadsantahay and activation emailka activation has been sent waxaa lagu diray to your email address to activate this account. Email address aad gelisay ayaa lagugu diray verification code-ka halkaas ka raadso. Please fadlan proceed to your email to accomplish. Emailkii hadda aan gelinayn daadu aan dhehnay maxaa ii sheeg meesha dhehnay ayaa waxaa noogu diray linki emailkaas soo kici doontaa linkiga kasii dhex geli doontaa sidaas wuxuu kugu xiri doonaa application-ka kugu xiri doonaa. Attention activation emailka will expire wuxuu dhici doonaa if haddii not approved macnaha 48 saac kadib haddii linkigaas aad macnaha dooro weysid oo aad application kusii socsii weysid wuu kaa dhacayaa. These emails might be deleted as spam. Spam-ka kala doonaan so please check your spam check folders. Dib xagaas ka fiila lagu leeyahay sanduuqaas ma aadan doonaan. Okay waxaan ku laaban doonaa intaas ay kusoo gabagabay doonaa insha Allah qaybta koowaad oo registration-ka aan sameynay. Wixii su'aalaha iyo comment ana waa nala soo wadaagi kartaan kadibna waxaan kasii wadi doonaa hawsha halkan kasii wadi doonaa haddii wax isbedel ama wax lagu soo celinayna nala soo wadaaga. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.